Assalaamu calaykum asxaabteyda soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadli doonaa bisha toddobaad ee uurka, marxaladda hooyada iyo uurjiifka ay marayaan. Waxaan horay uga soo hadlay 6 bilood ee ugu horeysa uurka oo aan bil aan uga soo hadlay. Sidoo kale 3 bilood ee ugu horeysa ee loo yaqaan first trimester iyo second trimester ayaan ka soo hadlay. Imika hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan halkan inooga bilaabanaya third trimester ama 3 bilood ee ugu dambeysa ee uurka. Allah ayaa mahad iska leh oo imika waxaan ku dhownahay gabagabadii. Waxaa inoo haray waa 2 bilood oo kaliya. Intii ugu adkeyd ama xaaladihii ugu adkeyd waa aan soo dhaafnay. Ilaahay waxaan ka baryayaa inta yar inoo dhimanay inuu Ilaahay inoo fududeeyo. Hooyooyinka bisha toddobaad ku jira inuu Ilaahay u fududeeyo, u dhib yareeyo, si sahlan oo ugu fududeeyo. Sidoo kale foosha uu Ilaahay ku dhibin. Haddii aan ka hadlo bisha toddobaad marxaladda uurjiifka uu marayo, xilligan markii lagu jiro dhammaan xubnihii uurjiifka waa ay soo sameysmeen. Xilligan waxaa socda korinshihiisa dhinaca miisaanka. Dhaxa uurjiifka markii lagu jiro xilligan waa uu furmayaan, waa ay xirmayaan. Sidoo kale dhaqaaq ayuu sameynayaa zaa'id ah. Sidoo kale waxa uu ka falcelinayaa codadka banaanka ka socdo. Wuxuu sameynayaa dhaqaaq, wuxuu kaloo sameynayaa inuu isgedgediyo. Waxyaabahaas oo idil uu sameynayo hooyada waa ay dareemaysaa dhaqaaqa uu xilligan sameynayo uurjiifkeeda. Maadaama ay soo dhawaatay banaan u soo bixidii uurjiifka laguna jiro bisha toddobaad, xilligan uurjiifka maqaarkiisa waa kalar cadaan camal ah. Wuxuu soo deynayaa melanin ama wuxuu sameysanayaa melanin taas oo qayb ka qaadata inay kalareyso maqaarka. Waana maado maqaarka siisa kalar. Intaas kadib haddii aan u imaano hooyada waxay isku arkaysa markii lagu jiro bisha toddobaad maxaa ka mid ah. Waxay dareemaysaa hooyada xanuun dhabarka qaybta hoose ah kaas oo u sii gudbaya lugaha ilaa ay qaybta hoose ayay dareemaysaa. Haddii hooyada ay dhaqaaq sameyso ama ay dhinac kale ay isku gudisana xanuunkii waa uu tagaya ama waa uu dhamaanaya. Waana wax normal inay hooyada dareento. Sidoo kale waxa ay dareemaysaa ama xanuun ay ka dareemaysaa caloosha qaybta hoose ah sida maroojis camal inay dareento. Iyadana waa wax normal ah. Haddii hooyada ay dhinac isku gudiso ama ay dhaqaaq sameyso waa uu deynayaa oo xanuunkuu ka tagaya. Waxa labaad oo hooyada xilligan markii lagu jiro ay aad iskugu sii arkaysa waxaa ka mid ah daal. Hooyada inta ay uurka leedahay oo idil ay daal ka dareentaa. Gaar ahaan bishan toddobaad waa ay dareemaysaa daal. Hooyadu waxay u baahan tahay inay jiifto oo dhinaca uu dhulka u yaalo. Daal waa ay dareemaysaa hooyada inta ay uurka leedahay oo idil. Calaamada kale ee hooyada isku arkaysa xilligan markii lagu jiro waxay tahay constipation ama caloosha oo adkaata inay hooyada dareento. Waxay kaloo dareemaysaa in hurdada ay ku yartahay. Hooyooyinku waxay dareemaan hurdo yari zaa'id ah, especially markii xilliyada lagu jiro. Hooyadu waxay dareemaysaa inay hurdada ay aad ugu yartahay. Waxay kaloo isku arkaysaa bakhur. Hooyada inuu baga zaa'id u hurayo ayay dareemaysaa. Waxay kaloo hooyada dareemaysaa neeftuur inuu zaa'id ay u neeftuurayso. Haddii wax yar ay socoto ay neeftuurayso ayay isku arkaysaa. Isbedelada kale oo hooyada ku imaanaya markii lagu jiro bisha toddobaad ee uurka waxaa ka mid ah inuu miisaan hooyada koro, inuu miisaan zaa'id ay dareento. Waana wax normal ah intee hooyada uurka leedahay oo idil inuu miisaankeeda uu marka ka dambeyso uu sii kordho. Intaas kadib cuntooyinka ay hooyada u baahan tahay markii lagu jiro bisha toddobaad ee uurka maxaa ka mid ah. Hooyada markii lagu jiro xilligan waa inay isticmaasho cuntooyin nafaqo siinayo uurjiifkeeda iyadana ka caawinaya in ironteeda ama HB-geeda uusan yaraanin. Waa inay isticmaasho hooyada cuntooyin isku dheelitiran, borotiin, carbohydrate, fruitis, waxyaabahaas oo idil ironti, nafaqo dhameystiran waa inay isticmaasho. Haddii aan soo koobo waxyaabaha ay u baahan tahay waxaa ka mid ah fruitka noocyadiisa kala duwan, midka ay heli karto hooyada ama waddanka ay markaas joogto laga helayo sida mooska, cambaha, avokaadada, qaraha, waxyaabahaas oo idil hooyada energy-na way siinayaan. Sidoo kale nafaqana waa ay ka helaysaa gaar ahaan qaraha hadday hooyada aad u isticmaasho maadaama ay neeftuur iyo bakhur ay dareemayso aad ayuu ugu fiican yahay. Cuntooyinka kale oo nafaqada ay ka helayso waxaa ka mid ah qudaarta cagaaran. Hooyada markay cuntada ay cunayso inay ku darsato qudaar cagaaran sida ansalaatada hadday heli karto, koosta hadday heli karto, broccoli hadday heli karto. Wixii markaas ay awoodo oo ay heli karto inay cuntada cunayso ay ku darsato. Aadna ay u isticmaasho way u fiican tahay. Sidoo kale ukunta, chickenka, waxyaabahaas oo idil hilibka, caanaha dhammaan inay hooyada isticmaasho.
boorashka, liin macaanta, liin balbeelmada, sidoo kale liin oranjiska. Waxyaabahaas oo idil way u fiican tahay. Hadba waxay ku xiran tahay hooyada waddanka ay joogto iyo qudaarta ama fruitiska ama qudaarta ku ah hodanka ay ku tahay oo laga heli karo. Xilligan maadaama uu socdo miisaanka uurjiifka, hooyada waa inay aad ugu fakarto inay cuntooyin nafaqo leh ay qaadato si miisaanka uurjiifka uu u kordho. Waxaad arkaysaa hooyo 9 bilood ku jirto ama 8 bilood ku jirto oo uurjiifkeedana aad u yar yahay oo intii loogu talagalay uu wax badan ka yar yahay. Waxaa la rabaa markii lagu jiro bilahan 6aad, 7aad, 8aad inaad sare u soo qaadid miisaanka uurjiifkaaga oo aad cuntooyin nafaqo leh aad cuntid. Waxaana ugu horeyn muhiim ah inaad dhakhtar booqatid oo aad ogaatid miisaanka uurjiifkaaga. Haddii uu dhakhtarka ku yiraahdo wuu yar yahay, markaas kadib ayaa u baahan tahay inaad cunto badan aad qaadatid si aad u korisid. Balse asagiyo normal ah oo inta loogu talagalay haddaad cuntada badisid oo inta loogu talagalay miisaanka uurjiifka uu dhaafo, halis ayuu kugu keeni karaa ay ka mid tahay inaad qalliin marto. So mar walba waxaa muhiim ah inaad kombiyuutar aad marto aad u ogaatid miisaankiisa inta uu yahay, kadibna aad u isticmaasho ama aad u cunto cuntooyin korinayo uurjiifkaaga. Cuntooyinka loo baahan yahay inaad iska ilaaliso markii lagu jiro bisha 7aad ee uurka maxaa ka mid ah? Number 1 waxaan soo qaadanayaa kofeega ama qaxwada, waayo waxa ay keenaan maadaama hooyada isku arkayso hurdada inay ku yar tahay, inay hurdada ay kugu sii yareeyaan. So waa muhiim inta aad uurka leedahay oo idil inaad iska yaraysid qaadashadiisa. Haddaad isticmaalaysana subaxii aad qaadatid ama markaa hurdada ka soo kacdid, wax yarna aad ka isticmaashid oo aadan badsanin. Sidoo kale iska ilaali cuntooyinka aan si fiican loo karin, cuntooyinka aan sida fiican loo bislaynin, iska ilaali iyagana in aad qaadato. Waxaa kaloo iska ilaalisaa cuntooyinka bakhoorka kugu keeni kara, cuntooyinka kugu kicin kara ama kugu sii ziyaadin kara bakhoorka sida basbaaska, waxyaabaha la midka ah iyagana iska ilaali oo iska yaree. Haddii aad kombiyuutar isa saarto ama ultrasound-ka caloosha muxuu soo sheegayaa, maxaa ka ogaan kartaa? Waxyaabaha uu kuu sheegayo ama aad ku ogaan kartid waxaa ka mid ah miisaanka uurjiifkaaga inta uu yahay, inaad mataano wadid iyo inaad hal cunug wadid. Waxaa kale oo aad ka ogaan kartaa position-ka uurjiifkaaga, madax keen miyaa, daba keen miyaa, waxaasoo idil waad ogaan kartaa. Waxaad kaloo ogaan kartaa wadna garaaciisa inta uu yahay normal inuu yahay iyo in kale, biyaha ilmaha ay ku dabaalanayaan inay normal yihiin iyo in kale, balasantada ama ibida meesha ay ku samaysan tahay oo marmarka qaar dhibaatooyin ku keento hooyooyinka. Xaalad walba oo uurjiifkaaga uu ku sugan yahay xilligan kombiyuutarka si waadax ah oo nadiif ah ayuu u sheegayaa. Intaas kadib maxay tahay waxyaabaha loo baahan yahay inay samayso hooyada markii lagu jiro bisha 7aad ee uurka? Ugu horeyn waa inaad isticmaasho biyo badan. Hooyada waa inay ahaato hydrated ama hooyo biyo badan qaadato ugu yaraan 8 gilaas maalintii ama 2 liitar inta aad awoodid inaad isticmaashid. Sidoo kale haddaad dareemaysid bakhoor zaa'id ah, inaad iska ilaalisid waxyaabaha qaar sida barafka ama socodka badan. Fitamiinada uurka ama fitamiinada xilliga uurka ay hooyooyinka qaataan weli joogtay inaad sii qaadatid oo sii wad maadaama aad ku jirto bisha 7aad ee uurka. Mar walba isku day inaad caloosha socodsiisid oo isticmaashid waxyaabo caloosha kuu jilcinayo, waayo haddii ay adkaato waxay kuu keenayaan xanuun inuu kugu imaado. So mar walba isticmaal cuntooyin caloosha socodsiinayo, fruitis, waxyaabahaas isticmaal si caloosha ay u socoto. Iska ilaali stress ama wax walba oo stress kuu keeni kara ama walwal, waayo xilliga markii lagu jiro hooyadu waxay u nugushahay inuu ku imaado dhiig karka uurka. So iska ilaali wax kasta oo kugu keeni karo inaad walwashid ama aad murugootid. Waxa ay saameyn doonaan xaaladaada caafimaad iyo midda uurjiifkaaga labadaba. Si uusan bareesharkaaga u kicin, ku dadaal inaadna iska ilaalisid ama iska yaraysid wax walba oo stress keeni kara. Haddii aad isku aragto barar, lugaha oo ku bararsan, sidoo kale indhaha oo ku wareerayo ama ku madoobaanayo, madax xanuun zaa'id ah, waxaad la xiriirtaa dhakhtarkaaga, waayo waxaa laga yaabaa inuu bareesharkaaga kacsan yahay. So haddaa calaamadahaas isku aragtid la xiriir dhakhtar. Ugu dambeyn waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. Ilaahay waxaan ka baryayaa hooyo walba oo uur leh inuu Ilaahay u fududeeyo. Hooyooyinka aan awlaad haysan, awlaad baari oo ku indho doogsadaan inuu Ilaahay ku irsaaqo. Kuwa awlaada haystana uu Ilaahay baari uga dhigo awlaad wanaagsan oo ay ku degaan inuu Ilaahay uga dhigo ayaan Ilaahay uga baryayaa. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.